وإن أتقرتا ربك والله ويا معبودك وإلهي ويا كعبادة متيستي وإلهي ويا كبرية متيستي وإلهي ويا كالرجاء متيستي وإلهي ويا كعبسدة متيستي وإلهي ويا كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بعيدة كليجي وشيبو ربك والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكى لعنكم الرقم وحكى لما آمن سني دين بانو نولحي دين بان برانيا دين بان كشقينيا وفق دين بان كجعلانيا دين لعنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما ما يسترتب النبي عليه الصلاة والسلام وين نقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة كنت على سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة مسلمين دول حقا أي جوغان قال دول حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال دا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة دا يقو صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبو لك مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو السنين علي بن أبي طالب وننكا كورف ديبو قنوف وجه لغا طفي مرقاسو علي قنوفا لغو طفي وجه لغا طفي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغو طفي علي وصريا وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufo kugu tufee war marka hore Ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dila ka baqay buu lillaahiyad waxaan qaban Ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan Ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici Ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin Ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg Ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan Ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaas nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam baa la horkeeni oo la oran doona maxaad u taqaanay shakhsigan markaas uu muuminka ilayay waa nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doona an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay afrishuhu min aljanna firash jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halka ka daawaday baa la oranayaa dulkaad ku celisay meydka dhulkan ku aasnay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum halkaad ku aasay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaab al-abrar la fi illiyin jannaduna waa fawqa 7 samaawaat halkaas qofka muuminku jannadiisa ka daawanaya sida inaku baaladan yaray imka aan haysanay mobilka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa inoo sheegay yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkay jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doona iska seex qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanaya laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto an-nawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun ba nabigu alayhi salatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday kala nama seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bihiyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannuhu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto
waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه الشيء سورة أفوفينا بإلهي إسرافيل بسورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونا لأن حق إلهي بالله سأرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولا يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيه وان جيفني وان وردني هرددا maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arka khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بإلهي آية الليل آية النهار نولش أدويد عن كل نول هاي ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسنيسا واد زيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله أيري نعم الدويدن انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي قنوش يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمنكينا beerbeeraha jannada kamid ah looga dhigaya gaalkiina waxa looga dhigaya godgododka naarta kamid ah looga dhigaya ninna uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta waruma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo بقبرك كصبح دونا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله أهل كيغا النقضة الله ينقدقه قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي قول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت إسكهر كفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كم هذنا نحد انتي مرقتي أنك النقاقاذي ربي قي واكيدا فتان كبنا إيه شكورك هاويان إيه أفعاشا وناكساني أدون كل ما در لك كغن نقضي ويان لأنه يصوب حيان يوم القيامة مالين تسرجوغا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين من مغليسد هبين كدودون واكاسي قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين ملو ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم كاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيغي وكنتم كنو سندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتا كنو سنة وعلى الجوغي توبان كنو سنة حسابتا كل ماني دون تبو يري
أفرتن كون سنة أيا سيد الله تاجنان دونا طبعا كون سنة حساب تقول دمان دونت لأن عربي ورير بادية أيا سرك عيد يا رسول الله ما لك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كود دارتي وان بدبادني بودي وان نبت قلبي مرقا ابو النبي يقول صونقو سيادو كن نبت قشيبو كيدي بلي الشيك وعد وكريم إلهي وكريم حدو دونو سكا أيا عفين بودي معيد باسكا قبصاني سيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو حتى جرى نبو رسول كل يحي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عيد وكل أفعالين ليس مجرته لغة عربية لغة واضح الله يا حاجة ميدكتو اجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو اجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو اجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كياشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي يقول تمر جيح تمر إني كانن هلين بو نبي يقول ياي هذا الكوناكسن أكو هذا كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي يقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله صو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو البباردي سيبا كتا الله دواسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما ليستحسعون يا هوا ليستحسعون يا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك عكس عدم مالنتاس من نبا ما قبض با من نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قل همي مجرب ورتي سواحة على النار دي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نيك الأورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ما يجين مركز لغو يري مروق تن بدن waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan bal adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegaya al mawt fi unuqi geeridii baa qoorta ii suran wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyaamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا واجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقول سمعين دوننا كما ورغبي بود عنه انت سو مرحلة نكا اي سوغا يسو اساقو هادو قصلي حق قصلي بويري انو تايدا كورما يا بويري انت نولا هاي اوهين با نولو شيري كودا ميسن بويري ما انت وادويو بريتو لو آخر ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محال وضاتا محان وطا عنوكو مانتا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مرقو نبي جنو كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالك سرجوكا أيا وات كي سنكر يا بي كتري من يقوى أيا كر يا بي كتري كنتم كنو صندوق مرقابو النبي يقول يا عائشة وفق مؤمنك إيمانك له ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baa banka qiyaamo looga dhigi buu yiri
intee tukanay salaadii maqrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo mu'minka iimaanka leh ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka mu'minka aakhiradu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiradu eega meeshuu marayo aakhiradu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo dhaqaalahaan bixinaayo ma dhaqaale aakhiradeeda i kabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku wuu xisaabtamayaa mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeece ku soo caabuday salaaddaa yare faradka inta uu tukanayey in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaga aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhanna kuu diraayo dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix